بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتم عم بلعبين 10 جديدة كاسو ليدادو انترلوك تيستينج. وانترلوك محاي تاي ورتا انترلوك واداق حير او كسميسان سبت كسميسان شميتا يو داق حير يو بعاد oo la isku daray taasoo wali lagu sii darayo midab color loo sameeyo afta nooc ay ka sameeysan marka waa la isku laaqayaa color baa laga sameeyaa marka waxa lagu dhisaa gajalada ama laamiyada geerkeeda oo saad muuqato warka nii muuqata saas uu sameeysan yahay interlock baa la yiraahdaa waa la dhex gelinayaa marka la rakibayo gajalada guryaha ama oodalada hortooda yaa lagu sameeyaa marka waxa uu midab kala leeyahay sababtuna waa colorka lagu darayo khaldada ayaa sababaysa inuu midab yeesho baarna caadi baa loo deenayaa sidiis sameeyay ahayd yaa loo deenayaa sayidin muuqata waxa waa in color leeyahay nooc kale oo kala leeyihiin waa dhowr nooc baa loo sameyn karaa habab kale yani waxay kala yihiin farmay kala leeyihiin noocyada kala leeyihiin waa idin muuqata kaas marka baaritaan baa lagu sameeyaa kaas ay idin muuqata baaritaan baa lagu sameeyaa waa kaas ay idin muuqata waxaan ku caynaa inaanu hello waka dhaghi waa interlock kasmiisay shamiitay sayni sheegay marka waxa weeyaan dhan buu godan yahay dhanna uu ka dheeriyay marka tada la 25 iyo dhererka 25 iyo balciyo ah 15 ahaato haddana waxa ka jira dhaxda inuu ka yar dhuuban yahay oo ka yar yahay dhaxdana laba qaybood baad u tirnaysaa waana laba dhinac weeyaan marka dhinacba inta ay tahay gudahan way ugu yar yahay haddana waxa ka soo ka sii yar weyn yahay marka sameynaysa labadii dhinac halkii dhinac bana laba qaybood u matiriso waa laba qaybood baad u matirinaysa waa soo geynaysaa qaybtan hore waxaad u geynaysaa qaybta dambe marka toon bay soo baxday ama 12 iyo takalna 12 bay soo baxday soo geynaysaa marka waa 22 waxaad ku dhufanaysaa labo waa laba dhinac say ay square-ku aad soo helayso oo noqdo isku mid marka labada dhinac hesho intay leeyahay haddana waa adiga dhammaan isku dhufanaya dhererkiyo 25 iyo balciyo 25 markaas ku dhufat inta ku soo baxdo halka jaraysa good ka yar gaaban uu leeyahay markaasuu muuqato kalka labada dhinac kale way ka dhuuban tahay labada dhinac kale marka inta waad ka dhex saaraysaa wad leedahay yani qaybta inta santay noqoto baad ka dhex saaraysaa waxa leedahay dhammaan waxaad kala yaad isku geynaysaa marka balciyo isku dhufato dhererkii waxaad yaadna waxaad ka jaraysaa inta yar naqane gudaha soo isku noqdo area aad wada hesho tafaasiilka wax ku si aan u sharxaya description ka si fiican u sharx area-di waan hadda xisaabinayna waan xisaabiyay markaan xisaabino area-daas waxaad qaadaysaa intay noqoto area-di baad waxaad u geynaysaa waxaad ku isticmaashay waa centimeter baad ku isticmaashay hadhow markaad jihaaskan gelinayna waan miisaamayna horta si aan u helo density-giisa waa laba qaybood baan u baahanahay inaan helo qaybta koobaad waa maxay waa density-ga inaan helo horta oo taan waxa lagu helayaa weight على الفوليوم baa lagu helayaa marka la isku qaybiyo miisaanka iyo volume-kiisa waxa lagu helaa density ku siinaya qoraan soo qaadanayna noocyadaas waan miisaanay hadda waan qoranay mintiradina waan qoranay qaybaha intay say kala hayna waan qoranay hadda waxa la imanayna jihaaska la imanayna si aan u helo maxay strength-kiisa awoodiisa uu leeyahay taxamul uu leeyahay ay khaldad kasta waxa design loogu sameeyaa nooc awood baa loo sameeyaa ha noqoto 20 ha noqoto 30 megapascal marka awoodda loo sameeyaa hal awoodii mu xaqiijiyay mise mu xaqiijiyay wala xiro qurux badan waxa loogu talgalay faa'iidadiisu waxa weeyaan inuu yani loo faa'iido leeyahay hada wajibitaanka waxaan wadno loo faa'iido labada faa'iido waxa weeyaan in ganjeerada lagu sameeyo hortiisa qurux iyo uu sameeyo mid kale in la kala furi karo hadii loo baahdo electric hoosta la mari wala kala furi wala isku celin waa taashimito ku shubto guriga inta hortiisa ganjeeladii ma dhawaan jabisation noqonta laakiin wala kala furayaa hadhowna waad marin waxaad u baahnayd ka dhowna waad isku celin waa ka hada jaaska ma shidnay laba hal bir baan hoosta uga dhignay hal birna dusha sare si ay u qaato surfing-ka dusha si uu wada miisaanaad la socota hal bir baan hoosta uga dhignay way balaaran tahay inay wax loo baahan yahay oo pressure-ku wada gaaro sample-kan asilo ee interlock waa inuu wada gaaro hal xadiid aad hoosta uga dhigi tusharna tushaad ka dhigi doontaa saa marka pressure-ka markuu cadaasmo kullu way cadaasmaysaa dhammaan way wada cadaasmaysaa area-diisa baan gelinayaa jaaska ka dhawaad starbucks sameynaa
marka start baan ku sameynay way socotaa marka uu burburi awooddu ku burburay yaa meesha kusoo qormaysa marka waa kaa la soco xisaabta oo descriptionka oo aad oo caddayn waxaan oo si fiican u sharxana waxaan ku soo sameynayaa descriptionka xisaabta kusoo qori iyadoo aad u tafaasiilan marka hadda waan jebinay way u dhamaaday baa uu burburay waan qoraynaa raqamkii loudkii waxaa milay waa kilonewton kilonewtonkiisii iyo hoosta wuxuu ugu dhigayaa midi pascalkii jaas kuu soo qoraya marka waanu qoraynaa markaan qorno waanu qoraynaa hadhow waan xisaabinaynaa xisaabta waxaad ka helaysaa descriptionka insha allah marka baaritaan kasta wuxuu waa ka xadiidka waan ka qaadaynaa beri baan kasoo dejinaynaa isagii oo burburay baan haddana si fiican u arkaynaa waan kasoo saaray internockii oo fiicnaay darkayseen sanu noqday uu burburay eber buu noqday wakaas marka waxay noo qoro waxaan na siiyey awooddii uu ku jabayna jihaaska ayna siiyey saa ula socda insha allah description share dhaha oo subscribe dhaha insha allah khayr baan isbognahay duruus badan way soo socotaa marka insha allah waanu ka faa'iidaysana wax kastoo la jebiyo wax kastoo la dhismaha kuwa khuseeyaba waa daruuri in la baaro wax kastoo dhismaha khuseeya waa baaritaanka u baahan yahay waan salaamaya dhammaantiin share dhaha oo subscribe dhaha khayr baan isbognahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh